kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ku bilaabatay horyaalka Ingiriiska guul kulan ay la ciyaareen kooxda Crystal Palace. Arsenal ayaa u safartay garoonka Crystal Palace halkaas oo ciyaarta ku soo gabagabowday 2-1 ay guush ku raacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa ciyaarta qaybtii hore ee bilowga ciyaarta si fiican u ciyaartay balse daqiiqado kadib waxay heleen goolkii ugu horeeyay waxaan u dhaliyay ciyaaryahan Martinelli. Bruno ayaa ahaa Bruno koonaha laga keenay saasay tahayna oo soo madaxay ciyaaryahanka la yiraahdo Sishenko kadibna uu ciyaaryahan Martinelli madaxa ku dhaliyay goolkii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa markii goolka heshay xoogaa waxa ka muuqday habacsanaan maadaama ay doonayeen kaliya inay badiyaan balse qaybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay ayay kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhalisay goolkii guusha. Goolkaasna wuxuu ahaa gool iska dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Arsenal ayaa ciyaarta soo kusoo gabagabowday 2-1 ku badisay saasoo tahayna Arsenal ayaa 3 dhibcood nadiif ka soo qaadatay garoonka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ee Selhurst Park. Arsenal ayaa guushan gaartay sanadkii hore markay tageen garoonkaasi. Arsenal ayaa wax lagu soo badiyay 3 gool iyo waxba balse Arsenal ayaa la wada sugayay sanadkani inay wacdar dhigi karto in kale saasoo tahayna Arsenal ayaa guul ku bilaabatay. Arsenal ayaa shax xogan la soo shirtagtay kulankani waxaan u ciyaaray goolkiibaha Ramsdale daafacan waxa ka ciyaaray Gabriel iyo sidoo kale Nicolas Saliba sidoo kale daafaca waxa ka ciyaaray bidix Sishenko dhanka midigna waxa ka ciyaaray ciyaaryahanka la yiraahdo Ben White qadka waxa ka ciyaaray Thomas Partey iyo Nicolas Granit Xhaka iyo sidoo kale ciyaaryahanka ka ciyaaray booska number 10 kan wuxuu ahaa iyo kabtanka kooxda Arsenal Nicolas Martin Odegaard. sidoo kale labada garab waxa ka ciyaarayay ninka la yiraahdo Gabriel Martinelli iyo sidoo kale Saka. weerarkan Arsenal waxa ku soo bilowday kulankiisa ugu horeeyay oo saftay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan yiraahdo Gabriel Jesus. Arsenal ayaa u muuqata sanadkani inay aad ugu diyaar garowday horyaalka Ingiriiska maadaama sanadkii hore kulanka ugu horeeyay horyaalka ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Brentford kadibna labadii kulan ku xigayna laga badiyay. Chelsea ayaa kaga badisay Emirates sidoo kale Man City ayaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal garoonka Man City ku ciyaartay Etihad Stadium. haddaba daawade ma u malaynaysaa sanadkan kooxda kubadda cagta ee Arsenal inay wacdar dhigi doonto inay top 4 soo gali doonto ama ay ku guuleysan doonto horyaalka qaaradda Yurub? wanaga inta barnaamijkii aan ku ogeynay kulankii Arsenal caawa ee kaga badisay kooxda Crystal Palace fadlan si share gare videoga like na saar sidoo kale subscribe dheh channelka haddii aad ku tixnayn aad baad u mahadsantahay daawashada muuqaalkan.